subax wanaagsan, galab wanaagsan, habeen wanaagsan, qaraaba iyo axsaabba kusoo dhawaada Kawawa Food Channel. Maanta waxaan idiin hayaa oon rabaa in aan sameeyo lasagna. Lasagna guduudan unbaad arki jirteen. Hadda waxaan rabaa lasagna cad oo aan ka sameeyay mushroom. Halkan waxaa noogu diyaara 250 gram brown mushroom iyo isagoo white ah. Inta waa 1 kiilo. Kii horena wuxuu ahaa 250 gram. So kiilo iyo 250 gram oo mushroom ah oo kiiladana cadaan tahay, 250 gramna uu brown yahay. Ayaan ku sameynaynaa maanta lasagnadeena. Halkan waxaa noogu diyaar ah 2 feeto oo chicken breast ah. Marka waan nadiifinayaa, biyaan ku saarayaa. Carfiskeedii waxeeda markaan ku daraayo oo mushroomkana aan dhaqo oon diyaariyo ayaan isku soo laabanaynaa aqyaarta. Maanta wacdara ka jira meeshaan jikadaanita wacdaro la socod wanaagsan. Aqyaarta marka qashinki waan ka saaray. Qashinka aan ku sheegayo waa meeshaas dheer ayaa laga jarayaa. Waa u jeedaa maleena meeshaas dheer ayaa dhag siinaysaa. Kadibna jarjarideeni ayaan slice amalan u jarjarayaa. Waa ila socotiinaan u maleynayaa. Kadib markaan fiina aan u jarjaro waan shiileynaa ilaah hadduu raalli ka noqdo. Waa u jeediinaan u maleynayaa. Jarjaridda aan idiin sheegayna waa sidaan. Habkaan ayaan u jarjareynaa. Waa u jeedaa. kama yaryareynaysid, saasaad u jarjaraysaa. sidii suugadii oo kale adoo u dallacaya ayaa hadhowtiina markaad badeelaha oolyada ku shubatid tuuntaada iyo carfiska kuu shiidanaad ku shubaysaa. markaad isugu kaa shiilmaan ayaad dhag ku siinaysaa. labada noocba mushroomka waa isku shiilayaa, ma kala saaraayi. soo kalarka cad iyo brownkaas hadhow wuxuu isku noqonayaa mixed color. waa ujeediina u maleynaa akhyaarta. akhyaarta marka halkaan hadda waxaan saartay daawadaas weyn. waxaan rabaa in aan ku dallaco mushroomka amba championka qofka siduu u yaqaano. alors halkan waxaa diyaar iigu ah sidii caadadeennaba ahayd carfiskii aan isku shiidan jiray, tuun, cusbo, oregano, filfisha madow iyo basilicum amba basil qofba siduu u yaqaano. marka hadda waan dallacanaynaa ilaah hadduu raalli ka noqdo. halkaanna waxaa inoogu saaran digaageeniyaa noogu saaran. halkaasna waa ila socotiinaan u maleynaa akhyaarta. okay, waxaan ku shubayaa extra virgin olive oil oo ah qaadada aan briiska aan ku cunno qiyaasteeda. laba xabo. waxaan kaloo ku darayaa ilaah hadduu raalli ka noqdo. markii waan dallaceennaa ileene. intaysan saliidan aad nooga kululaan. halkaan sidaa ogeedeen waxaa ii saaran digaageeni. mushroomku waa noo jarjaran yahay amba championka qofba siduu u yaqaano. waxaan ku darsanaynaa insha allah 2 qaadoo buuxdo oo qaadada bariiska ah. tuunta aadaan u jeclaha aniga. waxaan kaloo ku daraynaa carfiskeeni noo shiidnaa oo 2 qaado qaadada bariiska ah asna.
intaas ayaan isu shiileynaa ilaah hadduu raalli ka noqdo. markuu si fiican isugu shiilmo ayaan mushroomka aan ku rideynaa. waan dhaqay waan nadiifiyey, si fiican ayaan u nadiifiyey. hadda waan ku shubanaynaa marka. waxaan ku darayaa ilaah hadduu raalli ka noqdo cusbo oo ah cabirka qaadada kafeega lagu cunaa. cusbo badan ma xamilaayo mushroomka sidaad la socotiin, hal qaada ayaa nagu filan. hal mar ayaan isku qasayaa, kadibna waan daboolayaa. inuu badan yahay loo maleeyaa, laakiin hadhooti waa isku dhexdhacaa waxaan dhan, wax yaruu noqonayaa. waan isku dabooleynaa. waad la socotiin mushroomka haddii la daboolo biyuu dhalayaa. ani intuu isku dhexdhacayo un baan sugayaa, kadib wixii ka dambeeya waa shiilid. way fahanteen aan u maleynayaa. okay, halkan waxaan ku saaranaynaa ilaah hadduu raalli ka noqdo caanihi aan ku sameyn lahaa beshameelada. 1 litir iyo bar caagaas ayaan ku cabiranayaa aniga. litir iyo bar ayaan ku shubayaa. waa ila socotiin aan u maleynayaa. 2 nooc beshameelada waa u sameyn kartaa. haddaa ratid buuro xoogaa fiican ayaad dhalaalinaysaa, kadibna bur ayaad ku daraysaa. kanaan xoogaa dhammaystirayaa akhyaarta. laba siba waa u sameyn kartaa. buuraad dhalaalinaysaa, buuro, kadibna bur ayaad ku qasaysaa. habkaanna waad u samaysan kartaa, qofba siduu jecel yahay ayuu u samaysan karaa. waa ila socotiin aan u maleynaa akhyaarta. markuu caanahaas in yar soo qandaco, caanaha markuu in yar qandaco waxaan ku daraynaa ilaah hadduu raalli ka noqdo farmaajadii jarjarneed, iyo markaan dejin rabana waxaan ku daraa origano iyo filfisha madow xoogaa. waa isla soconaya u maleynaa akhyaarta. hadda caanaha waa ii shidan yahay. waxaan rabaa inaan ku daro wax yaroo cusbo ah. qaadada kafeega haafkeeda waay. waa la socotiin aan u maleynayaa. markuu xoogaa soo qandaco ayaan ku shubayaa mozzarellada oo jarjaran diyaarka ah. waa 500 gram ayaan ku karinayaa caanaha sameeyay. ila socotiin aan u maleynaa akhyaarta.
hadda caanaha way ii qandaceen waxaan ku shubayaa farmaajadan waa 500 gram sidaad la socotiin waxaan rabaa bishameelihii inaan ka sameeyo qofba si ayuu jecel yahay inuu u samaysto haddaad rabto buuraad saaraysaa bur ayaad ku shubaysaa saa ka samaynaysaa kadib ayaa caanaha ku shubanaysaa haddaad rabtidna sidaan ayaad u samaysanaysaa qofba siduu jecel yahay dabkana waa inaan yar gaabiyo saddexan ka dhigay tartiib ayaan u walaaqayaa ma rabo inuu caanaha hoos igaga dhago saasaa loo walaaqaa tartiib haddii kale hoos ayay ku dhegaysaa farmaajadaa hoos ku dhegayso inta waxaa inoo saaran digaageennii digaaga marka hadda waxaan ku darsanayaa carfiskii qaadada bariiska lagu cuno mugeeda waan ku wada shubayaa waxaan kaloo ku darayaa cusbo qaadada kafeega nuskeeda sababtoo meel kasta inay cusbada ka badato ma fiicno markastana maaha inaan sii ilowna caanihii waa inaan si tartiib ah u walaaqno ilaa uu cream camal uu ka noqdo cream camal markuu noqdo caanahaas waxaan ku daraynaa oregano iyo filfil yar iyo baasilika yar ayaan ku daraynaa insha allah ciyaarto ay la socotiin aan u maleynayaa mushroomkana waxaa la rabaa inuu biyahaas dhan dhammaado uu shiilmo markaan shiilaayo aan isna baasilika ku darayaa ilaah hadduu raalli ka noqdo akhyaarta hadda digaaggii wuu noo qaleysmay wax yar oo biyaha ku jiro marka biyahaas yarka uu ka dhammaado qaadadaas ayaan ku jajabinayaa markaas markay ma la shiidaayo qaadadaas ayaan ku jajabinayaa markaas ayaan u isticmaali doonaa lasaanyada ilaah hadduu raalli ka noqdo mushroomkiina waa ujeediin biyahaas inuu dhammaadaa la rabaa kadib ayaan shiilayaa meeshiisii un baan ku shiilayaa waxaan ku darayaa bas baasilika waa ila socotiin beshameelaheenina waa kaasaa waxaa la rabaa inuu cream noqdo asagoo dhan markuu cream camal noqdo ayaa waxaan ku daraa raalli noqdo ayaa waxaan ku darayaa oregano filfisha madow iyo baasilika fresha asagana waa markaan dejinaayo waa isla soconayaan u maleynayaa I hope inaad jeclaan doontiin akhyaarta hadda championki waa kaasaa amba mushroomka hadda saa u taqaaniin waa dry ayuu noqday waa ujeediin biyaha dhan waa ka dhammaaday waa ujeedaan waxaa la rabaa inuu shiilmo xoogaa yar kadibna hadda waxaan ku darayaa basilikadaasaan ku darayaa wax yar oo qurxin lee ah waa ila socotiinaan u maleynayaa beshameeladana waxaan ku daraynaa oregano iyo wax yar oo filfil ah oon badnayn waan isku qasayaa kadibna waan dejinayaa already diyaar waaye waan deminayaa midkaan waaba diyaar waa ujeedaa waxaa la rabaa saas kareem inuu ahaado wax yar inuu culus yahay okay
مشروم كنا ولا قنينا هذا مشروم كنا وديار أسجنا وعندنا يا أسجنا chicken كاننا ساس أيام قادري أيام كنت جبيه مشين كبانا استعمالين هذا مركو وعينا إزديارنا باستدي وعينا ديار سمنا حكي عن سميسن لهن مركا أقياد كسور دواد السعاد إلا أركتان هبكا عن اسكو بحدلدلين هايو فاصل واكنا وما باهنا إلا كريو بركي وحيكو كريسا صوص كاتي وحاس أيا كرينا إلى دور علي كالنقضة قيارة مركة هدير بدل لهني أيان سارنا هنا ووان صفينا إن شاء الله صاص أيان نوغسو دوينا كاميردنا وأجدينا أمالينا يا إن شاء الله اوكي هذا waxaan ku shubayaa sooskeeni creamka ahaa ee aan sameysanay kadib baastada ayaan dhigaynaa waa wax fudud qaybtan hoose markaan dhigo waxaan ku shubayaa digaagii aan ku shubayaa ilaah hadduu raalli ka noqdo waxaan ku shubaynaa mushroomkii aan sameysanay هذا بشميل أنا كشوبايا كدبنا وحن كشوبينا إله درا لك النقض مشروم دجاج فرماجو وحاسودنا كشوبايا هذانا يفرش باسيلي كذا فرماجة دي هاتو كشوبايا وحيرو باسيليكا لو درايا عندنا قيبتي كلا ايان سارايا ان شاء الله sidaas ayaan u wadeynaa ilaa aan ka dhammeeno sooskaas noo yaala iyo mushroomka iyo ay isku wada go'aan
mushroomka laftirkiisa waa sida hilibkii oo kale. Chickenka iyo mushroomka isla ku qiyaas ayaad ugu shubaysaa ilaa hadduu raalli ka noqdo. sidaas ayaan isugu sii wadayaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. waa ila socotiinaan u maleynaa. akhyaarta waa qaybtii ugu dambeysay hadda markaa. waxaan ku shubeynaa baastadan haddeertan waa nus kiilo lasaanyada aan sameeyey. qiyaastii aan ku sameeyey bashameelada waa la socoteen. 1 litir iyo bar caano ah, 500 gram oo farmaajadii ahayd jarjarneed ayaan ku diyaariyey. saa ula socotiin baastada uma baahnid inaad karisid, marba haddaad sooska uu kugu filan yahay sooskaas ayaa karinaya. marka hore ayaad sooska ugu talagelaysaa. baastadiiyo qaleel ah intaa gelin laheyd sooskaas ayaa kuu karinaya wax walba. haddaa rabtidna biyaa dabka saari kartaa, birdaawada oolyaa ku shubanaysaa, saas ayaad u karin kartaa. qofba siduu jecel yahay, bad aniga saa inaan u samaystaan ka jeclahay. khiyaarta waa ila socotiin aan u malaynayaa. waxaan rajaynaa in la jeclaan doono tanna habkaan u sameeyey. meel kasta inaan gaarsiino waa inaan meel kasta gaarsiinaa. waxaan ku shubayaa farmaajadii. waa leygii ugu dambeeyey kan. khiyaarta waxaan malaynayaa step by step inaan idiin fahansiiyey oodna ila socoteen. waxaan idinkaga mahad celinayaa dulqaadkiina badan ee aad isiiseen. inaan kala faa'iidaysano waa wax fiican, ilaah hadduu raalli ka noqdo. marka hadda waxaan gelinaynaa khiyaarta sidaan uu ku soo baxay. aan idiin soo dhaweeyey bal marka hore sidaas ayuu ku soo baxay. hadda marka waxaan gelinaynaa foornadaan gelinaynaa insha allah. waa ay noo shidan tahay foornadeennana. foornadaan dalaq siinaa insha allah. waxaana rajaynayaa in aad jeclaan doontaan habkaan u sameeyey. khiyaarta waqtigiina qaaliga ah aad ayaan idinkaga mahad celinayaa. waxaan u geeyey 180 kuleelka. insha allah 25 daqiiqo kadibna bannaankay taallaa. wada socod wanaagsan akhyaarta iyo axsaabtaba, family and friend, adduunka meel kastoo aad ka kala joogtaan. waxaan rajaynayaa in aad jeclaan doontaan habkaan u sameeyey lasaanyada caawa. marka like-ga, share-ka, subscribe-ka, gambaleelkana waa xaggiina. kolley faanole fari kama qodno. markaan soo saara ayaad arki doontiin habka ay ku soo baxday amba quruxdeeda insha allah. khiyaarta mar dhow waxaan rabaa in aan ka soo saaro, laakiin waxaan rabaa inaan wax yar barmasaan aan korka kaga shubo.
mardhow waa diyaar. Istaas yar barmazaanka in yar ku dhalaasho kadib waa inoo diyaar. waan soo saareynaa ilaah hadduu raalli ka noqdo. hadda waa inoo diyaar. waxaan ka soo bixinayaa ovenka. baastadeeni waa diyaar. saan idiin sheegay akhyaarta waxaa la rabaa gooldigaas inay noqoto. markay saas gooldi u noqoto waa diyaar. waad u jeediinaan u maleynaa si fiican. hadda kaamiradan soo dhawaysaneynaa. akhyaarta hadda waan jarjaraa kadibna waan isla dhadhaminaynaa sidii ay caadadeennaba ahayn jirtay. adduunka meel kastoo aad ka kala joogtiin I hope inaad jeclaatiin habkaan u sameeyeyna waad la socoteen. noocyo kaloo badan ayaan idiin soo wadaa oo lasaanyada loo sameyn karo. maaha hilbi shishiid iyo baas iyo suugo oo keliya. noocyo badan ayaa loo sameyn karaa. marka waan isla joognaa kullee. khiyaarta waxaan gees ka saaraneynaa. marka waxaan gees ka saaraneynaa tomaad iyo mayskaasaan gees ka saaraneynaa. maanta ansalaato looma baahno sidaad u jeediinba. dressinna waxaan ka dhiganaynaa balsamic. soo dhawaada qaraabo iyo axsaabba. saxankeenii sidaas ayuu ku soo baxay. waad u jeediinaan u maleynayaa. geeska gees markuu saas gold u noqdo oo 180 aad ku karisid ciriidan kaama noqonayo. baasto aad u macaan oo alidaanti ahna waa kaaga soo baxaysaa. marka axsaabta qaraabo soo dhawaada. janaalkayga Kawawa Food Channel ku soo dhawaada. ilaahu intaan haysanna sii annagana noo barakee. bismillaahi raxmaani raxiim. inaba caadi maaha kama hadli karo. inaba caadi maaha inaba. please isku daya habkan u sameeyey waad la socoteen kow ilaa dhammaad. axsaabta qaaliga ah waad ku mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ah ee aad isiiseen. aad iyo aad ayaan idinkaga mahad celinayaa. ku soo dhawaada Kawawa Food Channel. like-ga, subscribe-ka, gambaleelka waa xaggiina. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. habeen wanaagsan. bye.